waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib anigu waxaan rabaa inaan toos u gudo galo qodobada aan ra'yiga ka qabo. Tafaasiil dheer ma geli doono insha Allah haddii la yiraahdo si aan waqti ugu beeqaamiyo saaxiibadayda kale. qodobka koowaad oo ku bilaabayo wuxuu yahay qodobka 8aad ee ka hadlaya xasaanada xildhibaanada golaha shacabka. faqradiisa saddexaad waxaad ku sheegteen xasaanada xubnaha golaha shacabka waxaa laga soo saarayaa xeer gaar. xeerka marka kuma cadda cidda soo saaraysa, waxaan qabaa marka meeshaas in lagu siyaadiyo golaha shacabka inuu yahay cidda xeerka soo saaraysa si hadhowdii aan meel kale nololo aadin. qodobka 16aad ee ka hadlaya xilwaayada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen faqradiisa saddexaad dabcan waxaa soo qaadateen ereyga mooshinka marka ma ahan luuqad Soomaaliya markaan waxaan dhihi lahaa soo jeedin hal la yiraahdo soo jeedin kadib markaas barakaadka hal furo hal galiyo kelmadda mooshin. dabcan isla farqada shanaad ee qodobkaas sida uu qoran yahay ayaa sax marka waxaan qabaa in saas loo waafajiyo. faqrada shanaad isla qodobkaas markii laga hadlayay gudoomiyaha markii mooshin laga keenay shir gudoominta wuxuu leeyahay wuxuusan gudoominaynin gudoomiyaha maalinka codaynta laakiin inta doodu socoto gudoomiyaha isaga shir gudoomina meesha marka waxaa ka imaan karta conflict of interest marka waxaan qabaa bal dib in loogu laabto yani gudoomiyihii tusaale ahaan sharciga horta waxa loo sameeyay qof ma ahane waa sharci la rabo dadkan inuu kala hago marka gudoomiyuhu meeshaan fadhiya haddii xildhibaankii ka doodayay meeshaan inta mikrofoonka soo istaagay eediisa u qaato waxaa dhici karta gudoomiyaha inuu yiraahdo fariis socodku waa ka xiran yahay marka meeshaas waxaan qabaa in siday u qoran tahay waxaan u maleynayaa sidii xeeroosaadkii hore u qorneed xoogaa waxbaa ka bedelana bal hal la iswaafajiyaan dhihi lahaa ayadoon lagu tarax tagaynin sidii ayaama dhaweyd dhacaydoo kale oo ayada ruuxeeda gudoomiyihii awoodihii oo lahaa aan la laalin gudoomiyaha waxa looga hadlayo shaqadiisii sidii caadiga ahayd ayuu u gudanayaa laakiin dooda marka arinta mooshinka laga hadlayo kaliya weeye waxa arintu ay qusaydo marka waxaan qabaa meeshaas in dib loogu laabto ayada ruuxeeda oo la fiiriyo oo la waafajiyo xeeroosaadka sidii hore u ah. waxaan kaloo qabaa isla qodobkan in lagu siyaadiyo faqra ka hadlaysa xilliga mooshinka la qabanayo mooshinka goorma la qabana ma habeenkii la qabana mise shaqada qofku ma soo xafiiskiisa jooga ayaa mooshinka la qabana mise sariirta asoo jooga lagu geeyna meeshaas aniga waxaan u arkaa anagoo ka cibro qaadanayna wixii aan soo marnaa hadda muddadii la soo dhaaf inay aad muhiim u tahay in lagu siyaadiyo faqra cusub oo ka hadlaysa mudane gudoomiye xilliyada la qabanayo mooshinka. qodobka 22aad isla xeeroosaadka ka hadlaya xadidaadda fadhiyada golaha shacabka faqradiisa labaad waxay ka hadlaya xilliyo waqtiyeysan marka waxaan la qabaa saaxiibadii soo jeediyay xilliyada salaada iyo qadada inay meeshaas ku caddahay oo xildhibaanku uusan iska bixin ayadoo xilligii la gaarin ama waqtigu intuu ku dheeraada dadka qaarkood ayagoo khudbadihii muhiim u arkay inay dhageystaan in hadhowdii ay dhacdo inay inta iska baxaan wax muhiim ay dhaafaan ama salaadii ay dhaafto qofkii uu ku nagaado kursigiisa. isla qodobkan 22aad faqradiisa 13aad iyo 17aad waxay ka hadlayaan qaraamaad ku waajibaya xildhibaanka qaraamaadkaas ama lacagahaas qofka koraya laga qaadaya iyada ruuxeeda in la qeexo aaday ii sheeg munaasib u ahaa leh. waxaan kaloo qabaa faqra cusub ayadan in lagu siyaadiyo oo qusaysa dabcan waa laga hadlay kooramka iyo sida uu ku buuxsamayay iyo xilliyada iyo waxaas oo dhan waa la soo sheegay in lagu daro faqra ka hadlaysa mudane gudoomiye xildhibaankii waa yimid gurigiisii uu ka yimid hoolkii shirarka uu soo galay wuxuu diiday inuu saxiixo maxdarkii si kooramkii uu u buuxsamo yani dhowr jeer inuu dhaco yani 200 xildhibaana meeshan joogta 110 kaliyaana asaxiix intii kale waa diiday oo waxay diidan yihiin bashirka inuu furo xildhibaanka markay yimaada maalin dhaweed saas oo kale la sameeyay banaanka markii laga soo hubiyay liiskii 200 xildhibaana joogta gudihiina markii la yimid 110 saxiixda la leeyahay mararka qaarkood waxa dhacayda banaanka inta loo istaagay xildhibaanada laga loobin gareynayo oo la leeyahay saxiixnina ama laabta la leeyahay
faqrad ka hadlayda marka xildhibaanka inta yimaado diida inuu saxiixo kooramkii u buuxiyo faqrad ka hadlayda ani waxaan qabaa in qodobkaas lagu soo daro asagan qodobka 28aad ee ka hadlaya daafurnaanta fadhiyada golaha shacabka dabcan miidiyaha marka laga hadlayo ama warbaahinta waxaa la yiri go'aanka guddiga yani guddigu hadduu go'aan ku gaaro oo yiraahdo hala saaro warbaahinta go'aankaas la qaadanaa meesha waxaan qabaa mudana guddoomiye annaga dad shacabaan matalnaa baarlamaankan waa golihii shacabka matalayay in la dhageysto muhiim waa waxaan qabaa marka go'aan guddi kaliya in aan la dhihin ee go'aanka golaha la yiraahdo la cuslayo meeshaas sababtoo waxyaabo dadku ay arkayaan muhiim inay u tahay ayaa dhici karta in la yiraahdo go'aan guddiga lagu soo gaaray warbaahintana waa la saaraa xildhibaanaduna ay u arki karaan inay muhiim u tahay shacabku inay dhageystaan meesha marka waxaan qabaa guddiga ay ku qoran tahay go'aanka golaha in la yiraahdo waxoogaa la yara cuslay isla qodobkaas faqradiisa labaad waxaa ku qoran qaybaha loo ogol yahay inay ka soo qayb galaan fadhiyada baarlamaanka qaybaha bulshada marka laga hadlayo waa la qeexay culimo udiin iyo aqoon-yahano dhalinyaro haweenka dhammaan kooxahaasoo dhan waa la sheegay marka waxaan qabaa meeshan maadaama dalku xisbiya aadayo waxaan qabaa xisbiyaduna qayb inay ka noqdaan oo ayada ruuxeeda lagu daro oo qaybahaas laga hadlayo ay noqdaan oo inta siyaasadeed oo jira weeye loo ogolaado iyaga ruuxooda inay fadhiyada baarlamaanka imaan karaan qodobka 34aad ee ka hadlaya waajibaadka shaqo ee guddiyada golaha shacabka waxaa la yiri markii laga hadlayo go'aan qaadashada iyo soo gudbinta hindisho sharciyeedyada waxaa la yiri 3 meelood oo laba inay joogaan waa mudana guddoomiye guddiyada shaqeeya aad ay uga warqabaan marka uu furmayo fadhiyada guddiyada ayaa waxaaba dhici karta 50% in la waayo boqolkiiba 50 lagu daraa hal in la waayo ayaa dhici karta taas marka micnaheedu wuxuu yahay baarlamaanka hadda heertaan ka koobnaa 275 ayaaba 50% mararka qaar loo weynaya inuu furmo haddii la yiraahdo go'aan qaadashada sharciyada marka la soo gudbinayo waxay noqonaysaa thulthan ama 3 meelood oo labo micnaheedu waxay tahay hal guddiyo shaqeynaya lama arko meesha marka waxaan qabaa waa la cusleeyay in la khafiifiyo oo laga dhigo boqolkiiba 50 lagu daray hal oo 50% lagu soo celiyo aad iyo aad ma santiin